xilligii galaaska labaad ahaa oo aan weliba muraayado markaa aan qaadan in sabuuradii uu macalinka uu ku qoray imtixaanka kadib anigoo qoraayo jawaabihii weli si fiican u fahansan oo qoraayo ayaan waxaa arkay su'aalo ka mid ah inaanba ka booday kadib markii banaanka usoo baxnay iskuulka maan ka soo baxan ardaydu isweydiinayso su-aashaas ma ka jawaab markii aan maskaxdayda ku laabtana su-aashaas dhan maan arkin aad ayaan u ciilooday. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta kusoo dhawaada muuqaal cusub. maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay 9 calaamadood oo aad ku fahmi kartid canugaaga mise ubadkaaga inuu u baahan yahay baaritaan indho ama in araggiisa uu daciif yahay. maanta muuqaalkeena midaas uu ku saabsan yahay daawasho wacan. mar kale oo aniga Dr. Yaxya ugu barateen muuqaalada ku saabsan indhaha iyo arag. haddii taa markuu horeyso muuqaaleyn daawad subscribe saar sidoo kale like noo saar haddii hore nooga mid ahayd. calaamada koowaad aad ku fahmi kartid ubadkaaga mise canugaaga inuu baaritaan indho u baahan yahay mise araggiisana daciif inay tahay waxay tahay da'da markuu jiro 7 sano mise 6 sano wax ka badan in madax xanuunkiisa joogto ee tahay ee soo laabanayso. maanta qandho qabaa, biri qandho qabaa, biri dambe qandho qabaa, madaxa ayaa xanuunayo. weliba xilliga uu wax akhriyo kadib ayuu arrintan aad ku arkaysaa. midaas waxay ku sheegaysaa weliba muddo badan markuu wax akhriyo kadib inuu ku daalayo araggi taasna ay la xanuunayso madaxa. calaamada labaad waxay tahay in uu daal dareemayo markuu wax akhriyo kadib midaas oo keeni karta inay indhaha cuncunaan, indhaha huraan oo ilmeeyo xilliga oo wax akhriyo kadib. calaamada saddexaad oo ku sheegayso canugaaga in uu baaritaan indho u baahan yahay mise araggiisa daciifta waxay tahay ciyaaraha in uunan ku wanaagsaneyn ama haddii uu kubad ciyaarayo ama ciyaar walba uu ciyaarayo canuga kuma wanaagsano oo ciyaartiisa aad ay u hooseysaa. taas oo mar walba ku xiran xagga indhaha sababtoo ah waxa badanaa indhaha qayb la yidhaahdo depth perception ayaa jirto taas oo qaabilsan in uu qofka kubad ciyaarta uu ciyaarayo kale iyo meesha kubadoo kale markuu darbeena ama inuu gacan wax qabto rabo inuu rabo in uu la weynaayo taas oo inta badan in laga hubiyo rabto baaritaan indhan lagu ogaan karo. marka haddii aad ku aragta ubadkaaga mise canugaaga inuu ciyaaraha ku wanaagsan waxaa wanaagsan in aad shaki baxdid oo baaritaan indha aad geysid. calaamada afraad waxay tahay hal il inuu xiraayo. hal il uu xiraayo dhibaato uma keenayso indhaha laakiin waa calaamad ku tusayso in araggiisa uu daciif yahay ama in uu kiyaalo u baahan yahay laga yaabaa. midaasna waxaa kaga shaki bixi kartaa in aad baaritaan indha aad geysid. calaamada shanaad waxay tahay in uu mar walba indhaha cuncunayo ama indhaha xuqaayo ama inuu aad u ilbiriqsanayo ama indhaha inuu aad isugu qabanayo uu xiraayo. taasna waxay keenaysaa markii inuu wax akhriyo rabo wixii uu si fasiixa u arkeenin awood uu u sheeganayo inuu wax arko kadibna midaas ay keeni karto cuncun iyo indhaha inay daalaan iyo xuqid inuu indhaha xuqaayo. waa calaamad kuu sheegayso canugaaga mise ubadkaaga inuu u baahan yahay baaritaan indho. calaamada lixaad waxay tahay in uunan ku wanaagsaneyn wax akhriyo ama aad u fiiriyo canugaaga ubadkaaga akhriskiisa in uu ku wanaagsan yahay oo xilliga wax akhrinayo haddii akhriska ama in wax bartoo kale ee aad ugu adkaanaysa xilliga hore waa calaamad kuu sheegayso in uu araggiisa u fiicneen. sidoo kale waxaa la mid ah fahamka xilliga markay ugu horeyso iskuul mise dugsi aad geysid fahamkiisa aad u hooseeyo waxay u badan tahay inuu kutubkaba arki karin ama inuu araggiisa u wanaagsan taasaan u suurtagelin canuga inuu wax akhriyo ama inuu xilli hore wax fahmo. haddii arrintaasna aad ku aragtay xilliga uu wax bilaabayo barashada canugaaga in aad baaritaan indho geyso oo iska hubisid ciladan inay kaga imaanayso xagga indhaha. calaamad toddobaadna waxay tahay natiijada imtixaanka canuga markay soo baxdo haddii uu ku dhacayo ama uu ku wanaagsan imtixaanada waa calaamad kuu sheegi karto in canuga araggiisa aan fiicneen. marka waa inaad iska hubisaa natiijadaas imtixaanka ku dhacay in ay ka imaatay araggiisa iyo in kale. sheeko midaas qusaysan aniga ahaan mar ay ugu dhacdo oo ah xilligii galaaska labaad ahaa oo aan weliba muraayado markaa aan qaadan in sabuuradii uu macalinka uu ku qoray imtixaanka kadib anigoo qoraayo jawaabihii weli si fiican u fahansan oo qoraayo ayaan waxaa arkay su'aalo ka mid ah inaanba ka booday kadib markii banaanka usoo baxnay iskuulka maan ka soo baxan ardaydu isweydiinayso su-aashaas ma ka jawaabtay. markii aan maskaxdayda ku laabtana su-aashaas dhan maan arkin aad ayaan u ciilooday. waxayna cilada keentana waxay ahayd in aan arki waayey su'aal ka mid ah su'aalaha
marka calaamadasna waa calaamad kuu sheegi karta haddii canuga natiijada jawaabta aan ku fiicneen ama jawaabta markay soo baxda resultiga imtixaanaadka haddii uu ku dhacayo kale ama markis hoose uu keenayana in aa hubisid marka haddii aragtid canugaaga inuu natiijo xumo uu keenayo imtixaanaadka il gooni u lahaa oo baaritaan indha marsii in ciladaas ay ka imaanaysa xagga aragga calaamad sideedaadna waxay tahay canuga in uu taleefon markuu isticmaalayo inuu aad isugu soo dhaweynayo ama markuu buug akhrinayo inuu hoos iska soo gelinayo waa calaamad kuu sheegi karta cunugaaga in aragga fog uunan ku fiicneen ama baaritaan indho inuu u baahan yahay taas oo aad ku hubin kartid xilliga baaritaanka inuu araggiisu ciladan ay keenayso calaamada sagaalaad oo calaamada ugu dambeysana waxay tahay cunugaaga markii uu wax akhrinayo in xarfaha qaar uu ka boodayo ama meelaha qaar in uu ka boodayo marka qaar ilmaha waxaa laga yaabaa farta inay la raacayaan taas oo iska caadi ah xilliga weliba khaasatan hingaada ama wax ay baranayaan oo kale inay farta la raacayaan laakiin hubi markuu wax akhrinayo meelaha qaar ayuu ka boodaya weliba xilliga quraanka canuga uu baranayo oo kale ayaa aad loogu arkaa in safka uu akhrinayo oo kale inuu aayadaha qaar uu ka boodo oo kale ama meelaha qaar inuu ka boodo waa calaamad kuu sheegi karto in cunugaaga baaritaan indha u baahan yahay in kale sagaalkaas arrimood waa sagaal arrimood oo toos kuu tusi karo canugaaga baaritaan indho inuu u baahan yahay in kale marka haddii sagaalkaas arrimood aan soo sheegno mid ka mid a canugaaga ku aragtid fadlan baaritaan indho canugaagii intaas ayuu muuqaalkeena kusoo gabaynaya haddii aad ka hesho muuqaalka like noo saar waxaan idin rajaa caafimaad iyo indho fayow